anigoo marin xaashibixi oo jooga Queen's Park oo lagu soo banaya maanta xaflad weyn oo la yiraahdo African Festival oo community kasta ka soo qayb gala waxaan maanta wakiilkana community-ga Soomaaliyeed business-ga Soomaaliyeed baan uga soo qayb galay halka wax badan waa maartay waa imaanaynay hadda waxaan kala wakiilkana hay business Soomaaliyeed gaar ahaan la yiraahdo Bakaaraha wuxuu ku yaalaa 36 Coalfield Bakaaraha Kiil iyo Lawrence waaye alaabtan meesha ku arkaysan wax walba halkaas ka helaysaan waxaan kala wakiilkana hay Somali community gaar ahaan non-profit organization oo la yiraahdo Somali Future iyo Somali Relief ama Ramadan Relief oo dhalinyaro Soomaaliyeed isu tagtay ay suubinayaan fundraising ay u suubinayaan Ramadan dad badan oo ku dhibaataysan Soomaaliya inay afuriyaan hadii Ilaahay idmo hadda ka hor way ku guuleysteen haddana lacag bay ururinayaan waa Ramadan 416-846-0446 waxa kale oo ka helaysaan wadanka Mareykanka Virginia Hibaaq Caldoof oo iyadina numberkeeda kor kama hayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilisa saaray oo shaqooyinkooda uga tagay inay Soomaali wax u qabtaan waxaan rajaynayaa Soomaali oo dhan inay saas noqoto oo isu xilqaanto oo dhibaatada iska dhaafto iyo maaragtay eedaynta iyo shirjidida oo danteeda maaragtay ay qabsato hadda intaas ka badan waxa ma dhigi karo customer badan baa noo jooga busy baan nahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadda wixii ka bilowdo hadda ka bacdi waxa anadiin diibayaan Nadiif Cabdulqaadir oo iyaduna ka mid ah business-ka Bakaaraha dukaanna ku leh downtown of Toronto church iyo front sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum السلام عليكم وأنتم July 17 waxaan joognaa African Festival oo ka dhacaya Queen's Park Bay and Wellesley oo every year ka dhaca African Festival waaye waa 2 years waaye sanadkaaniti marka Soomaaliya oo waxaan ugu hambaleynaynaa inay ka soo qayb galaan aniga waxaan dukaan ku leeyahay 35 Church Street Church and Front inkastoo suuqa Bakaaraha aan ka tirsanahay asagana business-ka aan kula jiro oo ku leeyahay business marka waxaan u sheegaynaa Soomaalida maalin wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh